الله وبركاته. مركل يوم وخال عصب هل كان وحان روعنا ذلك سوق البيو ساعتيبة وكد على ذلك مكسيكو ويلي كبر يران توضي العي كسوق قانقاران اسكو قلاص اها اسكو فصل اها اي اقو دبين اسكو رسالي runtii xiriirkii yaraantooda soo bilowday wuxuu ku dhammaaday guul wuxuu noqday xiriir guulaystay oo waqti badan soo socday run ahaantii markii isguursadeen reerka waxay ahaayeen reerka gabadhu waxay ahaayeen reer dhaqan ama dhaqaale leh saa u taqaanid dadka dhaqaalaha leh inta badan waxay keenaan cilado ciladaas oo ah in ay ku qanci waayaan ninka gabadhooda guursaday ama ninka ay gabadha ka heshay runtii xiriir fara badan ayaa soo dhexmaray gabadha iyo wiilka kalsooni fara badan ma aysan ahayn dad kala hari kara ama wada cidla kala dhaqaaqi kara balamo fara badan ayaa ka dhexaysay ugu dambeyn xiriirkooda uu guulaystay way isguursadeen inkastoo aysan reerka gabadha aysan ku qanacsanayn ninkan waayo dhaqaale ahaan aad buu ugu hooseeyey reerka gabadha laakiin wuxuu ahaa nin kalsooni fara badan ku jirta hami iyo hadaf fiican ka leh nolosha aaminsan inuu noloshiisa asiga go'aamin karo ama horumarka gaarsiin karo xaaskiisa iyo carruurtiisaba laakiin reerka gabadha mar walba waxay ku dadaali jireen in gabadha iyo wiilka xumaato ay ka dhex abuuraan sidii gabadhooda u nacda ninkan ay ku kala tagaan balse gabadha waxay ahayd gabar go'aan leh mar waliba waxay fiirin jirtay jaceylka ay ninka u qabto iyo waqtiga dheer ay soo wada socdeen laakiin sida muddatay u ahayd sanooyin 3 carruur ay dhashay balse reerkii go'aankooda weli isma bedelin waayo in badan waxaan aragnay reerka gabadha ninka iyagoo nacaya laakiin markay gabadha waxuu dhasho ama in muddo ay wada noolaadaan isbedel ku imaanaya laakiin reerkan wuxuu ahaa reer go'aankii hore uu qaatay oo keliya uu u jiro gabadhana mar walba isku dayayay in labadooda dhexdooda ay ka abuuraan xumaato xitaa waxay samayn jireen borogaraamo been ah oo gabadha ay ku gelinayaan welwel iyo waswaas si ninkan u dhacdo ama naceeb ay ugu qaado guriga ugu soo wareegato balse gabadha mar walba waxay go'aansanaysay ninkeeda iyo carruurteeda ay ku dhex jirto waxaa dhacday gabadhiisay ugu wadeen xumaatadaas heer waxay gaartay ay reerkeedii u aragto cadowgeeda koowaad runtii markii si loo eego waxay ahayd reerkeeda cadowgeeda koowaad waayo guriga ay ku faraxsaneed ma aysan ogolaan inay sii joogto mar walba waxay jeclaayeen inay xaggooda u soo baxdo laakiin iyada go'aankeeda wuxuu ahaa inta cimrigeeda ka dhiman inay ninkeeda iyo carruurteeda ku dhex jirto waxay ahayd gabar shirkad u shaqaysa shirkadaasna marka hore waxay ahayd shirkad iska yar laakiin in muddo kadib waxay noqotay shirkadii shirkad caan ah oo aad iyo aad magac dheer u leh oo ilaa haddeer dunida qiimo ku leh waqtul xadarkan aan taagannahay 2021 shirkadaas waa shirkad ku taala Mexico waxay qaabilsantay fashionka marka dumarka ay qaabilsantay gabadhan waxay ahayd model ma gabdhaha xayeysiya dharka shirkadda iyadoo markaas soo kacaysa ay ka shaqo bilowday ilaa ay ka gaarto jagada ugu sareysa ay u gaartay samirkeeda ayna ku heshay ugu dambeyn gabadhii iyadoo heerkaas gaartay oo dhaqaale fiican abuurtay iyadii carruurteeda iyo ninkeeda isku faraxsan yihiin ayaa aabbaheeda qorshe wuxuu keenay cajiiba soo ninkan ugu diro aabihii wuxuu wacday dhowr gaangiistara ah waddankaas Mexican waa gaangiistara badan yahay gaangiistara ayuu wacday alaabihii gurigu ayay burburiyeen aabihiina way garaaceen hooyadana way garaaceen laakiin hooyada ma aysan ogeyn gaangiistarada inuu aabbaha soo kireystay balse aabbaha iyo gaangiistarada is ogaayeen wuxuu dhahay jirdila xaaskiina jirdila gurigana guriga waa inaad ada burburisaan markaad sii bixaysaan waxaad ku dhawaaqdaan ninka idin soo diray inuu yahay
ninka idin soo dir inuu yahay gabadhayda ninka qaba waa inaad intaas asxaan ii samaysaan si xaaskayga ay u qaadato ninka gabadhayda qaba in uu yahay cadowga nafsadeena. runtii hooyada markii la jirdilay si xun loo jirdilay maxaa naga doonaysaan? qof walba oo qof garaacay ama qof maaga wuxuu mar walba ku celceliyaa maxaad naga doonaysaan, maxaa idinka galabsanay? runtii si u jirdilayeen marka ugu dambeysay si tagayeen marka soon ayuu dhahay markaan soo laabanayno kaw idinka siinin ama nolosha idin dhaafinayna, laakiin haddar booskeena wuxuu nagu soo amray inaan idin jirdilno oo keliya. marka hooyadii ayaa dhahday booska waa kuma, waa anaga nolosheena dhibaato ku qaba, waa hebel hebel. ninkii magaciisa ay ku dhawaaqeen ee gabadha qabay, hooyadii waxay la noqotay la qaadan waa ama la yaab. aabihiina wuxuu iska dhigay nin arrintaas la yaaban, madaxuu qabsaday uu fadhiistay, wuxuu iska dhigay nin arrintaas la yaaban. gabadhii ay si degdega hooyada telefoon ugu soo dirtay, gabadhayda adiga ninkaas naga raacday, annaga wuxuu noo soo kireystay gaangeystaro weynana jirdileen, xaafadda ayaana joognaa noogu kaal. gabadhii iyadoo naxsan ay gaarigeeda soo qaadatay, gurigeed timaaday, waxay aragtay hooyadii oo dhiigaysa, aabihii oo dhiigay oynayo dhahayo hebel anaga inta yare ee annaga aan kugu kheelkheelinayn ama borogaraamka yare ee aan ku wadwadna iyo xumaan u arkay gaangeystar inoo soo kireystay saanay noo galeen. gabadhii iyadoo caraysan ayay ninkeeda telefoon u dirtay isagoo mar iyo waay u haynin shaqadiisa iga jira. waxay dhahday maxaad doonaysaa, maxaad damacsan tahay? wuu yaabay ninkaan wuxuu dhahay maxaan doonaya, maxaan damacsanahay? nolosha waalidkayga mayaa ku dhibaysa ay dhahay. kadib wuu la yaabay wuxuu dhahay isteji anaa idin imaanaya. wuu soo baxay, halkay joogtaa? guriga aabba ayaan joogaa ay dhahday. wuu soo baxay, gaarigiisuu soo qaatay, guriga markuu albaabka soo galay ay aabbihii wuxuu gacanta ku hayay wiilkii ku tuuray. fadhay dhaaf gaangeystare ay soo kireysatay, anigoo nool inaa ii aragtay dib ayd u aragtaa sooma. kadib wuu yaabay ninkaan arrintii. gabadhiina way caraysan tahay, sadogtiisna way caraysan tahay, aabisadogiisna waa ninka qorshaha keenayba. almuhim gabadhii markii sirbaar ay samaysay, inkastoo ninkeeda aada u jeceshahay, haddana waalidiinteeda ayay muujisay inay si dhab u jeceshahay oo wiilka ay kasii jeceshahay, balse arrintan aad ay u xanuunjisay, ninkeeda way kaga xumaatay. almuhim waxaa dhacday adiga xoogaa maskaxdiisa aad uma usan istimcaalin, wuxuu ahaana maskaxdiisa aan fuurba-een ama aada degnayn. gurigii askar ay u wacday, ninkeedii ayay xirtay. markay xirtay kadib cc kaamirada ayaa la fiiriyey, ama kaamirada qarsoon guriga ku xiran ayay askarta la degeen, way qaateen. saldhigiyaa lala tagay, cc kaamirada dadka duway oo hooyadii aabbaha jirdilay ee wejiyadooda laga arkay. kadib wiilashii wax jirdilay ayaa lasoo qabtay. iqaab fara badan horta markii lasoo qabtay kadib waxay sameeyeen askarta dad maskaxle ay ahaayeen. booska idin soo diray ayaa doonaynaa inaad noo tilmaantaan ay dhaheen. asigna odayga waxaa ka khaldamay ninkii soo diray ama ninka eego dambiga dusha inuu ka saaro sawirkiis ma uusan tusin, waayo haqa sidiisbana wuu soo daahiraa. waxaa dhacday niman fara badan ayaa lagu daray ninkii, waana soo dirsada ay dhahayeen lasoo dhex saaraya. runtii sawirka ma hayaan, ninkii odayga soo kireystay sawir ma uusan tusin, way garan waayeen. kadib xabsi ayaa loo taxaabay oo 5 sano ah ayaa lagu xukumay. laakiin markii iyaga la jirdilay oo la iqaabay waxay sheegeen runta, waxay dhaheen odaygaas ayaa soo diray, ninkaasna dambiga dusha ka saara ayay dhaheen. ninkii waa la soo daayey. markii ninka la soo daayey oo gurigiisa yimaaday oo caddeyntii gabadha way ogaatay, gabadha maxay samaysay? runtii gabadha go-aanka ay qaadatay go-aanka xun weligeyga ma arag. sidaan maantana aan ka soo sheekinay inta ugu xun ugu dhibaatada badan waa intaan. gabadhii way fikirtay, habeenkii dhan way seexan weysay, muddo bil ah ayay gabadhii hurdag soo dhici ninkeedii iyada in reerka ay ka dhalatay ay go-aankaas qaataan, reerkaas u burbiyaan dartiis. waxay dhahdays maxaad samaysaa? dadkaan nolosha ay kuga celiyeen, mar waxay isku dayeen iyada isdisho,
sunacto haddana way u suurgeloweysa carruurtaada dartooda in loo yidhaahdo laakiin go-aanka ay qaadatay ayuu ahaa go-aan waaliya qof kastaba ma qaadan karo go-aankaas ilaa qof gaal inuu qaato laga yaabo qof muslima lagama yaabo go-aanka noocaas inuu qaato waxay samaysay daraagis ay soo gaday gurigooda ay aaday waxay ku samayn doontaa daraagiskaas gurigooda ay aaday daraagiska waxay siisay hooyadeedii iyo aabbaheeda waxaa kaloo samaysay aabba iyo hooyada markay siqaameen aysan ordi karin dhibaato walba ku timaado xitaa aysan qaylin karin waxay samaysay habeenkii bartamaha habeenkii ay timaaday guriga oo dhan ay ku gubtay iyagoo hooyadii ku jirto aabbihii ku jiro ay dab ku qabatay markay dab ku qabatay waa iskaga soo carartay gurigeedii kusoo laabatay kadib deriskii ayaa waxay kusoo kaceen gurigii holcayo damiskii dowladda ayaa loo yeeray gurigii laakiin waqti waxay imaadeen dabdamiska waqti ay hooyadii iyo aabbihiiba dambas noqdeen ay baaba'een runtii gurigii hareerihiisa iyo wixii dabka uu ku kacay ayay baareen booliska waxay ogaadeen dabkan in shakhsi caadi ama dab caadi loo kiciy inuu yahay aysan koronto ahayn xilado kale ku imaanin meeshii ay sawiro ka qaadqaateen ugu dambeyn gaarigeedii iyo lugtiisii ay xideen adduunka wax walba lambar ay leeyihiin qof walbana wax uu wato lambar gooni ay leeyihiin gaarigii lugtiisii ayaa lasoo tixraacay ugu dambeyn wuxuu noqday gaarigeeda markuu noqday waxay isku dayday in gaarigan in muddo ayaa iga maqnaa waa leega xaday inay dhahdo waxay la tagay booskii ama meeshii laga dacweyn lahaa gaariga markuu ka maqan yahay meeshii liis bay ku yeelan weysay ugu dambeyn gabadhii shakiga iyada uu soo galay inkastoo waalidiinteedii waxaan gubteen ummaddu way la yaabanayeen dabkan hooyadii aabbaha lagu gubay in shakigiis uu gabadhii iyaga dhaleen soo galo waxay la noqotay arrin cajiiba kadib xabsigii ayaa la geeyey baaritaan culus ayaa lagu sameeyey ugu dambeyn waxay afkeeda ka khiratay in ay ahaayeen dadkaas dad xun nolosheeda inay burburiyaan rabeen kadibna iyaga noloshooda ay burburisay runtii aniga waxay ila noqotay qisada ugu cajiibsan aan weligeyga soo gudbiyo hooyi aabbo oo adiga ku dhalay ama xumaad ama samaada in ficil dhacaas oo kale lagula dhaqaaqo damiirka caadiga ah ee normalka ah in uu keenayo ila macna inkastoo gabadhan ay tahay bini aadan oo haddana ficilkan ay samaysay adiga siday kula tahay waxay kula tahay gabadha inay khaldan tahay inuu aabbihii iyo hooyadii khaldan yihiin haastan aabbaha khaldan yahay waxay kula tahay qisa noocan oo kalena weligaaga ma maqashay ama ma aragtay reer ay ku dhacday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu